ninkaani waxay leedahay gurigaas ayuu igu soo xidhay anoo boog ah oo xanuunkan dareemayo ilaahay inuu og yahay ayaa waxa uu sameyn jiray sidoo doonaga heli jiray. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال كسو دوادا مقالكين مانتا صاحبيدين قيام بدانا كوحران channel كدد وينها يوتيوب وصاحبكين مو فامي اي مقال قالو حيسالة صاحبيال مانتا وحان اذن لو ذاكيا دعضو انا قال لي لو ذاكي واحد دعضني لو ذاكيسا قابد صوماليات badanaa dhacdooyinka Soomaalida gudaheeda ka dhaca awoodda ma saarno oo wixii waa international dunida kale ayuu ka waranaa laakiin dhacdadani markaan dhageystay arrintan gabadhan ila wadaagtay runtii way adkaatay inaan ka gudbo oo waxa khasab igu noqotay sheekadan maadaama ay tahay aan u arko masiibo gabdhaheena haysata si cibro loogu qaato arrimaha noocaasina wax looga qabto iyo qisada gabadhaas oo runtii ah mid aniga ay saameysay marka waxay ka fariisan weyday inaan idin la wadaago sheekadan sheekooyinka Soomaalida problemkooda iska badan sidaas ogeed waxaan doonayaa gabadhaasi identity-geeda magaceeda meesha ku nooshay waxa soo dhan inaan qariyo sababtoo ah waxaan ogahay haddii aan dibadda keeno oo sawirkeeda keeno ano intaasi oo dhan bahayo awoodi karaya haddana waxaan ogahay dhibaato fara badan inay gabadhaasi ka soo gaari karto marka qaar dadaas leedahay ayaga ayaa dunida oo dhan kuugu dhow oo kuugu jecel oo waxay kugu noqon karaan cadow dad fara badan marka la yiraahdo waalidkaaga cadow kugu noqon kara maba aaminaan macquul ma aha bay oranayaan laakiin waxa nagu jira waalidiin waaweyn oo غير mas'uuliyiin ah oo yaqaan kaliya sida ubadka loo dhalo balse aan aqoon sidii ay uga soo bixi lahaayeen waajibaadka ka saaran ubadkooda saaxiibayaal ku soo dhawaada qisada gabadhan oo faahfaahsan arrintani waxay soo bilaabaysaa meelaha sanadu markay ahayd 2005 mise 2006 adoo waqtiyadii dagaaladu ay ka socdeen magaalada Muqdisho waqtiyadii Etoobiyaanku ay dalka soo galeen ee maxaakiintu dagaalamayeen ee adigu jabkiyo balanbalku ay ka socdeen waqtigaasi ayada ah runtii dad fara badan oo reer Muqdisho ah ayaa dagaalkii waxa uu keenay inay kala cararaan dantu ay ku galifto in kuwii awoodi karaya gabi ahaanba dalka isaga baxaan oo dalka dibadiisa u gudbaan kuwii kale awoodi karaya inay deegaanada kale ee Soomaalida ay tagaan ay u firxadaan dhinacayo deegaanada kale ee Soomaalida ee ammaanka ee dagaaladu ka socon si ay ula cararaan ay u badbaadiyaan nafsadooda ubadkooda iyo xaasaskooda laakiin in badan oo kamid ah ayagu Muqdisho kamaanay bixin way ku samreen ama wad ku dhimanaysan ama ku noolaanaysan bidhaadeen way ku noolaayeen alxamdulillah ilaa haatan Muqdishodoodii bay ku nooliyeen qaar badan way dhinteen qaar badanna way nooliyeen alxamdulillah hadaba qoyskani waxay kamid ahaayeen qoysaskii waqtigaasi dagaalada ka cararay laakiin aan awood u yeelan in dalka dibadiisa uga baxaan oo Yurub iyo Carabaha iyo meelaha u baxaan laakiin waxay awood u yeesheen inay ka fogaadaan deegaanada ay dagaaladu ka socdaan isla mar ahaantaana ay tagaan deegaanada kale ee Soomaalida ee haba yaraatee dagaaladu ka socon ee ammaanka kala damaynta iyo xasiloonida ay ka jiraan waqtigaasi asaga ah waxay ahaayeen waa odaygii reerka xaaskiisa wiil iyo gabadhii ku xigtay laba caruur ah wiilka weyn gabadha ayaa ku xigtay wiilka daadiisu waa ilaa 6-7 meelahaas gabadhuna ilaa 5 sano ayay jirtay meeshii ba hadaba gaari ka soo qaateen ayagoo hadaba gaari soo saaran oo soo socda ayaa dhaxda waxa uu galay qolyo hubaysan waqtiga hadda qabqablayaal iyo dad iska hubaysan baa wadada iska goosanaya dadna gawaarida ay iska baaranayaan marka xoogay waa loo yarahan jibay su'aalo la weydiiyay qabiil iyo miya waxba adu laga dhax raadiyay adu alxamdulillah balaayo kuma dhicin way soo dhaafeen magaaladii taargoodkoodii ahayd ay u soo socdeenna way soo gaareen magaalada Muqdisho iyo magaaladani kale yimaadeen runtii aad bay u kala fog yihiin shaqo iyo shaqo isku malaha meeshii markay yimaadeen waxay arkeen shakhsiyaad fara badan oo sidoo kale Muqdisho ka soo tagay oo ayaguna sidaas la mid magaalada soo tagay marka magaaladan dadka Muqdisho ka tagay waqtigaasi dagaalada iyo wixii ka socday wararka waa la socday dagaal ka socda iyo dhibaatada ka taagan iyo qaxa iyo waxa ka socda aad ba marka dadka reer Muqdisho loo soo dhaweyn jiray loo ixtiraami jiray walaalaheena Soomaaliyeed soo dhawaada yani magaaladan waa magaalo aad looga jecel yahay marrabo magaalada magaceeda inaan sheego sababtoo ah magaalada magaceeda sheego sheekadii way soo dhawaanaysaa gabadhana in la fahmo diidanahay laakiin magaaladani waa magaalo aad loogu soo dhaweeyay dadkii reer Muqdisho yimid caruurahoodii iskuulada ku darsadeen alxamdulillah 10 sano iyo waxba isaga noolaayeen oo ilaa heer jaamacad caruurihii gaadheen markii Muqdisho nabad noqotayna way ku laabteen magaaladoodii qaarkoodna magaaladii way fahmeen ganacsigii way fahmeen ilaa haatan ma sha Allah way ku nool yihiin inkastoo deegaanada Soomaalidu qabyaalad wax la iska jirto sometimes iska dareemaysid faqooq iyo xoogay in tolkaagi aan meesha joogin haddana qaar kamid oo wali waxa jooga iska degan sida gabadha
gabadhani aynu ka waramino qoyskeeda. Gabadhan magaceeda rasmiga sheegi mayno laakiin magac baynu bixinaynaa waxaynu oranaynaa Nimco sababtoo ah nimcada Ilaahay. Nimco yar aabaheed iyo qoyskeedu markay magaalada yimaadeen alxamdulillah waqtigaasi odaygani meel wuxuu ka shaqeyn jiray roodhida iyo wax lagu sameeyo xoogay marka lacag yar oo jeebka ku sitay ayaa waxa uu ku kareystay jiingad yar oo sandaqada halkii bay degeen waxa uu bilaabay isla markiiba inuu magaalada galo oo shaqooyin raadsado. alxamdulillah waxa uu ka helay magaaladaas meel lagu sameeyo roodhida iyo keega iyo waxyaabo noocaas. marka xirfadiisu maadaama ay ahayd hawlahan meeshaas ayuu in muddo ka shaqeynayay sidaas ayuuna caruurtiisa iyo reerkiisa ku biilayay. alxamdulillah magaaladaasi muddadii ku noolaa 3 caruur oo kale ayaa u dhalatay halkaana waxay ku noqdeen 5 caruura. caruurahanina gabadhii Nimco ahayd iyo walaalkeedii ka weynaa labaduba horta iskuulay dhiganayeen. alxamdulillah iskuulkooda waxbarashadooda gabadhani waxay ahayd gabadh runtii aad u furfuran aad u faraxsan mar waliba dhool cadeynaysa aanay haba yaraatee wax dhibaato iyo mashaakil aanay ka muuqan. asxaabteeda iskuulka ay ku leedahay aad isaga badnaayeen waxay aad ugu haminaysay inay noqoto gabadh wax barata jaamacadda ka baxda shaqaysa dadaasha reerkeeda saacida mustaqbalna yeelata. hadafkeedu ugu weyn kaas ayuu ahaa. aabaheed runtii waa dadaali jiray reerkan wuu la dadaali jiray laakiin hal mushkilad ayuu odaygan lahaa baasha balwadda la yiraahdo ayuu aad u isticmaali jiray taasi oo keentay inay dhaqaale ahaan burburiso lacagihii uu soo shaqeeyo oo ku soo rafaado. haddii maanta odaygaasi aanu balwad lahayn oo sigaar iyo jaad midna isticmaalayn shaqada uu haystay darteedu asaga ayaa warshad samaysan lahaa asaga ayaa meel gaar ah samaysan lahaa oo independence ayuu noqon qof xor ah oo shaqaysta ayuu noqon lahaa mustaqbalka. laakiin wixii uu soo shaqeeyo haaf waxa qaba balwadaas jaadka iyo sigaarkaas mar walba saa u rugaya waxa ugu muhiimsan waa jaadkaas. marka dhaqaale ahaan qoyskan aad ayay u liiteen laakiin islaantu samirka iyo bedinaysay mar walbana waxa odhanaysay war xaajiyo reerka waka xaalkuma wacna raashin baad maqan raashinkii wuu go'an yahay dhuxul baa loo baahan yahay asna duqdiibu canaananaya uu leeyahay maxaa kaasiya wax ma yareynaysid waxiiba dabkaad saaraysaa wax farsamee baanu ku nidhi. laakiin caruurtu ma dareensana mashaakilka gudaha ka taagan iskuulkooda iyo wuxooda ayaa iyagu iska tegayaan. waxay hawshu saa ku socotaba muddo kadib odaygii asaga ahaa bilaa camal ayuu noqday oo meeshii ayaa laga eriyey. shaqadu markayna shaqadaada ahayn ha ku tashan weligaaba inaad meeshaas u fadhin doontid haddii aad ka diyaar garoobin ood mustaqbalka uga fikirin maalin maalmaha ka mid ah amba meeshaad ka shaqaysid baa kala kiciba amba mid ku dhaama oo lacag kaa yarna qaata ayaa la keeni karaa. sidii ayaa ku dhacday odaygii shaqadii ayaa laga eriyey maadaama odaygu balwadiisu iska badnayd shaqadana aanu si fiican u wadayn sanado badanna oo meeshaas ka shaqaynayay. adigu shaqadii waa laga eriyey in muddo ayuu guriga joogay. muddada haddaba guriga joogay xaalku ma sahlanayn. gabadh walaashii ah oo dalka Ingiriiska joogtay ayuu xoogay la hadli jiray oo oran jiray bal wuxuu nagu soo tar xaalku waa iska xun yahay anna camal ma haye bal wax noo soo dirtir. marka gabadhaas ayaa isku dayaysay inay xoogay wax yar u soo turturto intaas u soo dirto ayuu haddana kala shaxaadi jiray oo wax yarra reerkan ku biili jiray inta kalena intuu qaadka iyo kookada iyo waxaas intuu soo qaato ayuu guriga la soo dhex fadhiisan jiray ku qayli jiray. markaasuu caruurta ku qaylinaya caruurta dhibaateynaya darbaaxada babta dirirta qaylada oday balwad leh markuu bilaa camal noqdo uu guriga ku soo fadhiisto oo haddana bilaa dabeecada caruurta cadaabo u jirsiinaya. gabadhan markaa aabaheed wax naxariisa kamaanay arag. guriga haddii uu soo galo cabsi ayaa u daaranba. aabayaasha qaarkood markay guriga soo galaan caruuru way ku farxaan alxamdulillah aabahay mid beedhadan way farxaan laakiin aabahan guriga markuu soo galo waa la baqaya farxad ma jirto cabsi baa jirta mid walba digtoonaanshiyo ayaa ku jira. 2 qof ayaa gabadhan markaa xoogay u dhowaa oo is yara fahmayeen. labadaasi qof waa hooyadeed iyo walaalkeeda ka weyn. iskuuladoo kale waqtiyaad qaar waxa dhacaysa in la yiraahdo maanta waxba la qabanaya waxba jira amba wax kan baa jirta lacag la idin ka rabaa $10 keena $5 keena maalmahaas oo kale dhibaato ayaa la kulmaysay oo lacagtaas inay soo hesho ayaa adkeyd. sidoo kale maani awood uma lahayn inay u xaragooto oo dharka iska bedbedesho iyo kabahaba sida gabdhaha saaxiibadeedo kale. haddana sidaas ay tahay alxamdulillah farxad kama qasnayn balse markii si dambeysay gabadha yar sii weynaato waxay dareemaysay ku baraarugaysay xaqiiqada nolosha iyo adeegeeda iyo dhibaatada hortaala. saaxiibayaal gabadha yar markii iskuulka gashay 8aad mise 7aad labadaba si fiican uma hubo adu labada midkood markay gashay waliba 8aad baan u badinayaa markay gashay iskuulka dadeedu waxay ahayd 15 sano. waqtigaasi ayadana waa waqtigu aabaheed bilaa camalka ahaa oo guriga fadhiyay. waxaa dhacday gabadhii Nimco ahayd maalin maalmaha kamid ah ayadoo guriga iska fadhida oo casharaantii diyaarsanaysa ayuu soo galay. deetana waxay ku aragtay dhool cadayn iyo farxad aanay ku arki jirin. gabadhiiba ku yiraahdo iska waran xageed wax marinaysa waxbarashada see tahay masha Allah
allah haye gabadheer way faraxsantahay maasha allah abahay maanta suula hadlaya way yaaban tahay alxamdulilah aba maasha allah waxbarashadii meel fiican bay marsaa ha iskuulkii waa dhammaynaysaa hadee soo maha ha khalaas dee abaada gabadh weyn baa tahay maasha allah iskuul iyo waxbarasho iyo waxaa haddee dee waabad ka weynaatay gabadh weyn oo guursanaysaa tahay bahadeed kaftan marka iyadoo arkayso waxay ku tiri guur weli ma gaadhine insha allah waxa weeyaan waan dadaalayaa wax baan baranayaa heer baan gaadhayaa oo noo shaqaynaya may shaqa ma jirto aba waa caadi waad iska guursanaysaa gabdhahaadii ku laaglay muqdisho imika hataan ku geeyo gabdhahaadii ku laaglay kaawa way ku guursadeen reer bawday laleeyihiin maxay reeray waa 15 jir gabadhani lijli haatan ayay gabadhani 15 sano gashay 14 ayaba ka baxday marweyd asna guuriyo waxaan loo joogan waxaana shaxdiisa weli si fiican u fahmin ba weeyaa adu hadalaas u xooga kula kaftamay uu ka tagay maalintaas gabadhani waqtigaasi ayada ah culays fara badan ayaa haystay culaysida haystay waxa kamid ah dhinaca iskuulka gabadhu markay 15 gaadho iskuulkiina ay sideedaad ay gasho nolosheedu isku mid maaha waqtigaas iyo markay shanaad iyo afraad ahayd no hatta waxyaabo fara badan bay u baahan tahay ka warhayn fara badan bay u baahan tahay sidoo kalena gabadha ugu weyn guriga maadaama ay tahay iskuulka markay ka timaado shaqada guriga waa ayada shaqaale lama qabsanayo maba awoodayaan be tabaray shaqaale ku qabsadaan maba laha ayada ayaa ugu weyneyd ayada ayaa nadaafada iyo cuntada iyo wax waliba oo gurigaas looga baahan yahay qaban jirtay sidaasay tahay haddana waxay ku dadaali jirtay inaanay marnaba aanay ku khasaarin dhaca waxbarashada ay ku dadaasho sababtoo ah hamigeeda iyo hadafkeeda ugu weyn waxa ahaa inay gabadhani wax barato deetana mustaqbalka ay shaqaysato reerkeedana ay anfacdo dhibaatadan iyo cidhiidhigan ay ku jiraan ay kaga baxaan ay ku nastaan odaygani show maadaamuu yahay oday balwad leh oo balwadda aad u qabateemay muhiimadiisa koowaadna ay balwad tahay waxa uu raadinayaa shaxdii uu lacag ku keeni lahaa deetana waxa uu fahmayba welibana fikradaasi waxay ku soo dhacday maalin maalmaha ka mid ah waxaa lagu soo xidhay nin dalka maraykanka ka yimid ninkan waa ilaa dhowr iyo 30 jir 35 jir meelahaas weeye nin saaxiibkii ah ayay ninkaasi isgaranayeen ninkaasina waxa uu raadinayay gabadh yar oo guursado deetana ninkay odaygan saaxiibka yihiin ayaa kan ku soo xidho ku yiri ninkan waa saaxiibkii isbarta maraykanku ka yimid way isbarteen way isdhaxgaleen deetana xukuniyo nin dalka maraykanka ka yimid baan ahay sanado far badan baan meeshaas ka soo shaqaynayay 15 sano ku dhawaad baan warshad maxay ka shaqaynayay oo alxamdulillah noloshu way fadhidaa niyoon waxaan u soo laabtay inaan dalkayga maadaama sanado badan aan soo shaqaynayay inaan dalkaygii u soo laabto deetana aan guursado gabadh dhaqan iyo diin leh maadaama aan ahay anigu nin Soomaaliyeed aanu doonay naaga fara badan oo meesha jooga way jiraan laakiin dadka xagga joogay waa dad baabay dhaqan iyo diin iyo waxaas way daayeen intuu ilaahay soo hadeeyay mooyaane badankoodu waa dad aan ku fiicnayn dhaqasho odaygan markaa ninkan maasha Allah maraykankana uu ka yimid waa ninkaas jagjagta ah Amerikaanka ah ee luqadda Ingiriiska sometimes tahayo Ingiriiskana ku tuuranaya Janis buu arkayba oo maasha Allah waa si wanaagsan iyo hundee wax weeyaan waa lagu soo dhaweynayaa runtaa dadka xagga jooga dad nafle maaha ugu dambeyn ninkaas markaa waxa ogaaday inay gabadhani u joogto gabadhani yar inay u joogto deetana wuxuu ku yiri hoon gabadhaada yar ayaan doonayaa inaan guursado oo dhaqdo kadibna waxaan doonayaaba inaan xaggii maraykanka aanu kaxeeyoon xaggaas ku noolaano odaygan fursad ayuu meesha ka arkay Allah maasha Allah war waa si wanaagsan gabadhaydu way joogtaa gabadh walibana wax weeyaan aan ku soo tabcay wax baratay oo hadda iskuulka klaaskii 8aad maraysa quraanka si fiican u taqaana diinta taqaana maasha Allah ya kaalay araga waxa weeyaan waa diyaar gabadhaydu diyaar ma aha maasha Allah odaygii deetana wuxuu sameeyay arrintii waxa uu la wadaagay islaantii gabadha yar dhashay waxa ku yiri gabadheenu haatan way weynaatay nin dalka maraykanka hadda waa maraykankii ka yimid ayaan gabadheena seenaynaa gabadheenu way nasiib badan tahay ninkaasaan seenaynaa maasha Allah waxa ku jirtay war xaaji waa ku sidee gabadhu way yar tahay gabadhu weli ma baqan gaadhin 14 jirkiiba hata ka sii baxaysaa 15 jirkiiba hata way yar tahay gabadhu waa sidee ninkani horta duqda waxa weeyaan madaxu kaga taagan yahay odaygan way ku daashay lama doodoodo lama buuqbuuqdo hadduu war la yimaado adaa saxan weey saxanaaba saxan mar walba ayada buuqiisa iyo sawaxankiisa qayladiisa ka cararaysa ayaa mar walba adaa saxan ay tiraahdaa okay xaaji samcan wataacan ay leedahay duqda laakiin arintan maamada xogay ku yaradkaatay waxa ku tiri xaaji may gabadhu way yar tahay wali korin bay ku jirtaa kada markaasuu ku yiri dhageyso noloshan ku arkan meel arkin xaaladan ku jiro cirkaynu iska haynaa maxaan meesha ku haynaa ninkani waa nin soo shaqaystay oo intaasi oo sano dalka Mareykanka ku maqnaa dhaqaalo ina siinaya gabadha yar mustaqbal ayuu siinaya dalka Mareykanka ku geyn doona gabadha yar mustaqbal bay samaysanaysaa dalka Mareykanka markay tagto waxa laga yaabaa inay shaqo fiican hesho na soo caawiso bil walba na soo beeliso waxa laga yaabaa inay xataa na dhoofiso
awaalantahay war meesha fursad baa taal aduu islaantii wuu ku qanciyay dhan walba oo kala maray okay buu kaga siiyay adigu iyadoo xoogay sina happy uga hayn ayuu adigu ku qanciyay okay haatan gabadha yar ayaa hadhay gabadha yareed sida loogu qancin lahaa ayaa la iska rabaa habeenada kamid ah ayuu u yimid waxa ku yiri baaba si fiican dhigayso haye maxaa jira aaba nimcooy saan hor maanta dhood kugu sheegayba waad weynaatay waxaan ku hayaa nin aad ku jecel aad ku daryeeli doona oo dalka Mareykanka ka yimid asaga dalka Mareykanka wax weyn ayuu leeyahay ayadu laakiin dal Mareykan iyo muhiim waxaasi oo dhan waxba kama garanayso aaba waan yaraay weli guur ma gaadhin waxbaan bartaa see wuxuu hadaa aaba horta wuu ku soo sobay dhinacan buu kala maray aduu wanaagii uga sheekeeyey iyo faa'iidada ugu jirta iyo in markaa Mareykanka tagto ay faa'iidi doonto taajirad noqon doonto maxay noqon doonto tusaalayaal buu soo qaatay aduu gabadhii yareed markuu arkay inaanay waxaasi ku niyad sameyn hadalkiina aanay aqbalin waxa ku yiri nimca si fiican dhigayso waa guursanaysaa anaa waalidkaaga anaa markuu dambeeyay waa guursanaysaa dadna ka baxay gabadhii yareed murugo nolol mugdi ayay gashay gabadhii yar telefoon buu keenay telefoonka cid soo dhibtay taqaana waxa uu soo dhiibay ninkii Mareykanka ka yimid oo aday ku yiri xoogay niyoon habi ma yara aha ma yara qanacsana bal la hadal oo la yara sheekayso bal qanci odaygii bal la soo hadlay adigu qoraal uu soo qorqoray waan ku jecelahay maxay sidan oo kale nolol baan ku siinayaa maxay baan ku siinayaa meeshaas aan ku geynayaa anuu dalin dalka Mareykanka ka yimid baan ahay wuxuu soo diray guriyuu ku noolaa gaadhigu wato maxay nolol cajiiba waxaan dhan ayadu dan kama laha gaadhigan iyo waxaan uu tustusay oo dhan ayadu dan kama laha bal waayay wajigaaga tus bay ku tiraan ku arkay sawirka loo soo diray waa sawir nin weyn oo daada aabaheed ku sii dhow ayadana gabadhii sawirkeedii u dirtay waxa ku tiri adeer bal fiiri anu gabadh yar baan ahay gabadha dhalin kartid baan ahay guurguuriyo waxaana ma jeedee ardayad baan ahay waxaan bartahay adeer riwaayadayga kaftankayga mimi horta ani adeer ay odhan hadalka hagaaji luqadii naga hagaaji xabiibi dheh odayga aabaha saaxiibaan nahay waan isfahnay sheekadoo dhamaatay caadi iska dhig anyway kuma qancin hadalka ninkana ugu dambeyn gabadhii habeen iyo maalin horta ma seexan murug ayaa haysa ma ninkaas hadda lagu geynaya tolo muxuu ku sameyn doonaa tolo sidoo ku yeeli doonaa waxba sidaa ugu sasawiran gabadha shakhsiga kaliyaata ay isleedahay uu ku fahmi doonaa xaalkana waxbuu ka qaban doonaa waa hooyadeed bay hadaba la fadhiisatay hooyadeed wuu jeedaa gabadhan inay murugaysan tahay inay halka taagtaagan tahay iska fikirayso wuu jeedaa laakiin way iska indhatiraysaa hooyadeed bay la fadhiisatay waxa ku tiri hooyo si faahan dhigayso indhahayga soo fiiri xaalkaygu musaalaya way maxaa ka qaldan hooyo aabba sheekuu ila yimid nin baan ku siinayaa buu ila yimid waan ku guurinayaa buu leeyahay inta la leeg aabba madigla hadashid waxay leedahay maamadii hooyaday een islahaa ayada ayaa garabkaaga istaagi doonta ayadaa ku fahmi doonta ayadaa kaa qaban doonta waxay bay ku leedahay hooyo waxaasi waa caadi gabadh baa tahay kolley nin bada joogtaa inaad guursatide dee maxaa ku diidayaa nin fiican oo ku dhaqan karaya oo nolol fiican ku siin karo dalka Mareykanka ku geyn karaa inaad guursatid maxaa ku diidaysaa anigu baa adig ku leeg baan guursaday oo adig ku leeg ayaa odayga aabaha leesiiyay alxamdulillah maanta aniga nool adig ku dhalay adiguna berri ka maalin waa dhalaysaa nolosha waa iskala qabsanaysaa waxaas wax weyn maaha waa iska caadi hooyo ma adigii waxaan dareemay in la heshiiyay arintii hal qof baa dhimana la wadaago waa walaalkay wiilkiiga weynaa ee walaalkay ayaa maalin maalmaha kamid ah anoo iska fadhiya oo oohinaya oo murugaysan gurigaygu soo galay deedna uu soo gara fadhiistay wuxuu yiri hoono maxaa ku dhacay yaa ku dilay maxaa sadan ku murjiyay deedna waxba ma sheegin waa iska aamusay wuu baxay chocolate iyo wax yar buu soo gaday oo ii keenay wuxuu isku dayay inuu iga qosqosliyo oo ilaha hadlo oo ila ka gaftamo hooyaa ku dishay caadi weeye waxaasi una caadi iska dhig markii dambe waxaan ku hore si fiican dhigayso walaalkayo qofka kaliya ee islaahay uu ku fahmi karaa waa adiga xaalku masalana balse soo fiiro na guur gaadhamaanahay maybe waxaas ma jirto wax guurka ka sheekeynaysid hadaba odayga aabaheenaha nin weyn alla weyn oo dalka Mareykanka ka yimid ayuu isiiyay waana ku guurinayaa buu leeyahay hooyana arintaas way ku raacsan tahay oo waxay leedahay guurso bismillah madaxu qabsaday wiilkii waxaad ka sheekeynaysid ninkani aabihii kuma hagaagi karo waxa uu og yahay haduu aabihii hadal oo tago dharbaaxana ka soo horeysa aabihii waxa uu hayo ku dhufanayo waxa ku yiri arintaas ma dhici karto ana hooyo la hadlaya diji xaalka hooyadii buu tagay oo la hadlay warkiisa waa maqli weeyday waxa ku tiri gabadhaas way guursanaysaa odaygii dhalay ee mas'uulka ahaba bixiyay annagu waxba kama qaban karno saaxiib wareerka iska jooji iyo boodboodka gabadhaas aabaheed baa u talinaya sidii ayaa dhacday maalin maalmaha kamida ninkii iyo qaar odayaal oo ilmaadeeradiya qaraabadiisa soo kaxaystay guriga loo soo fadhiistay aniga waxay leedahay wax babali ma weydin meherka xataa ligalama heshiin ayaga
aniga iyo aabahay baa isla dhameeyay gabadha way meersantaa oo saasan ku meersanahay waan baxsanahay wax allaaliyo wax lagu meeriyay wax lagu heshiiyay wax lagu oran waad meersantahay ninkaas ku qaba ninkaaga waka waa lagu hooynaya ninkii asaga ha is xariifiyo suura xidho khatar iska dhigo guri yar intuu kareystay waa ka sariir soo dhaxdhigay durba alaaba soo dhigay maxay aroos iyo waxaas ma jirto waa la xareysanaya gabadhii waa ka gaari lagu qaaday xaggan iyo xaggan laga maray saxab iyo xoogay loo tuntumay laho gabadhii adigu ninkii gacanta loo gali nimcayar ninkaas ayaa gacanta loo galiyay isla markii loo hooyay oo guri geystay nimcayar guriga markuu ninkii la tagay waxay leedahay cabsidii adduunka ayaan dareemay albaabka horta hoosta ka soo xidhay albaabka ano arkaya qab hoostu ka qufulay ina marweeyo soo gal waa habeenkii igu horeysay ee ninkaas meel kali kula noqonaya tire guriga waxa ahaa 3 qol albaabkii dibadda soo xidhay qolkii hurdada ayaan tagnay guriga si u dhan yahay waa aniga iyo asaga oo kaliyaata ninkii asaga ahaa wuxuu isku dayay inuu ila hadlo oo igu qanciyo oo igu soo dhawaado anigu saasan sunnabaya gabigayguba waan gargariiraya cabsi baa daaran adeer iska kayda sanahaya ninkii intuu xanaaqay markaan adeer iga daada ka joojin waayay hal baaxa dhigta ii galiyay waxaad arkaa waxaad ka sheekeynaysid ninkaagana xaaji idha xabiibi idha waxaad ka sheekeynaysid markaasaan samray markaasaan madaxa qabsaday waan idhi hay xabiibi waaye xabiibi haye idaaha igu dhufan markale igu dhufan ninkii habeenkaas anoon raalli ka ahayn ayuu i qabtay wuxuu ii geystayna habeenkaas tacaddi waxaan odhan karaa waa tacaddi kufsiya xanuunka oo ninkaasi habeenkaa i mariyey inta noloshayda ka dhiman ma ilaawi doonay ku leedahay anoon weligay mara layga saarin oona nin weligay korkayga taaban baa waxa ila dhaqmay sidii naag intaasi oo sano la soo qabi jiray qofku markay ugu horeyso waxan ee aan hore u soo arag iyo markay already nolol hoos soo aragtay laba ayay kala yihiin waxaan loo baahan yahay qofku marka ugu horeysa ha yaraado amba ha weynaadabe si naxariis leh oo degan loogu dhibriyo laakiin ninkan waxaas ma jirto waxay leedahay dhulkii dhan wada dhiig gabigaygiba argagax oohin qaylo asagu waxaasi oo dhan xanuunkayga ma dareemayo oo intayda ma dareemayo wax allaaliyo wax dareen naxariis oo bini'aadanimo oo ninkaasi qalbigiisa ku jira maba jira kuleedahay nafar bini'aadan oo noocaas inuu nool yahay yuhuuddu xataa nooca ma leedahay qof bini'aadan oo noocaasa weligay ma arag umana malaynayo inuu jira kuleedahay ninkaas oo ila dhaqmay ninkaani waxay leedahay gurigaas ayuu igu soo xidhay anoo boog ah oo xanuunkan dareemayo ilaahay inuu og yahay ayaa waxa uu sameyn jiray sida doona iga heli jiray in muddo markuu saa igu waday markii dambe waxa bilaabay inuu iga tago maalinta oo dhan wuu iska maqnaanaya meeluu ku maqan yahay garamaysid habeenkiibuu soo noqonaya asagoo gebigiisa oo nooc kale oo ka dhacsan kadibna wixii uu igu sameyn jiray ayuu igu samaynayaa ninkan waxay leedahay waxa uu isticmaali jiray horta wuu qayli jiray jaad buu si waalee u cuni jiray sidii nin jaad u xiisay oo kale buu naftiisa ka qaadi jiray mar waliba jaadku agtiisu yaala sidoo kale waxa uu cabayaa xashiish sigaar maxay waxaanan garanayn kiniin aanan garanayn buu mar walba jeeb kala soo baxaya oo liqaya markuu aan imanayo gebigiisuba waa nooc kale wax buu isticmaalayaa waxay leedahay ninkani waaba nin khamarji ah oo googo'ay oo nin nolosha beri hore ka dhacaya waxa uu isticmaalayo waa waxaynan hore arag inta yare maalintii uga maqan yahay baa ka yaran nasanayay uga bixi jiray okay su'aasha meesha talaya hadaba waxay tahay waxa laga yaabaa inaad isleedahay markuu ka baxo maxay u baxsan weyday waxa u baxsan weydaan ku sheegaya ninkan uu ku qufuli jiray xabsi ayaba gabadhu ku jirtay marnaba meeshaasi awood ma lahayn inay ka baxdo taleefonna ma haysato oo hooyadeed lama hadli karto aabaheed lama hadli karto waalidiinteedu asaga ayay la soo hadlayaan asaguna wuxuu leeyahay allah gabadhiini way fiican tahay alxamdulillah maanta shopping baan u baxnay wax baan soo gadanay markay ku yiraahdaan ilaah hadashiina intuu garaaco oo jidilo أو يدجيو أو يقولون هي عادي ولا هذا سيد قفر أحسن عادي سكدك دول لباب بلوضة نكان مركان حبسي وجري أو صوت دونه يجيلي أو صوت دونه عذابي حتى مركان حنون صده أنكور هذا تختار بانو بهنا هاي إما أمينين وركه وابحسن سابي يقولون جري ما لا يمجين جري تختار إما جينين مدل لباب بلوض مركي وصل عنك عسير رفادي أي حال كي حمادين أنا عادي وحنون صدي صبته مسكحيا واندنتي جد أهانو واندنتي ونكني سيد حوجن وحيو جيسنيو وحكدران تلك وجيسنيو مركا قار وإسكا إيمانيا وقف كبيجيس ونوع كلا وحسو عبي وإسكا كي دليا كبرت عياد هايد نلاشي بك قوستي نفتي دي بالنعذي والدين تيدي بالنعذي كبي هم بالنلاشي وحيل النقطة قداد gabadh 15 jira marka hore aad u faraxsanayd hamigoodu ahayna wax barato heer gaadho baa ugu dambeyn waxa uu aabaheedii dhalay u soo gacan galiyay ninkaasi cadowga ah 2 bilood kadib hadda waxa leedahay ayaan caadi u xanuunsaday waxa uu arkay in xaalkaygu xun yahay
oo xataa sariistaay kareen oo idhaahayga isbedeleen waxa tiri subax kamida waxaan soo toosay ninkii oo shandadihiisii alaabiisii xirxidhay ana sariirtan jiifa ishaan ka fiirinaya wax laalay wuxuu sameeyo deetana anoo sariirta dul jiifay intuu yimid ayaa waxa ugu yirnaa dhageyso saddexdii baad iga tahay waad iga furan tahay kuma raba annaga nooxa cadhoonaysa mar walba noo oohinaysa deetana gaari baa u yimid alaabihiisii oo dhan buu qaatay gurigiina xagga dambe iga xidhay iguma qufulin laakiin xagga dambe ayuu iga xidhay oo ma aqaan waxbuu galiyaan maleynaya adigu ma qufulin laakiin xagga dambe dusha ayuu ka xidhay uu ka tagay deetana markuu ninkii iga tagay waxaan isku dayay in albaabkii riixriixo waan furi kari waayay xanuun fara badan ayaan dareemayaa xagga hoose caloosha ayaan xanuun zaid ka dareemayaa feedhaha culays zaidan ka dareemayaa gabigayguba adigu xanuun iyo jilaac gabigayguba u tacbaan baan hayay kulahay waa iska soo noqday cunto yar oo xal soo hadho meesha taaliban iska cunay shaax yar baad u karsaday iska yar cabay sariirtan ku noqday xoogay waa iska yar jiibsaday maalinnimadii dambe ayaan soo kacay albaabkii markaan furi kari waayay daaqadan ka dhawaaqay albaabkayga furaay baan idhi gabadh wadada marisay ayaa deetna albaabkii iga furtay anoo rafaadsan oo gabigayguba nooc kala ah ayaa deetna saan u socday waxaan imid gurigayagii hooyaday qaabkaan u ekaa markay aragtay way naxday way fajaxday way aamini weyday inaan ahay gabadheedii yan kale na maxaa kugu dhacay na waa maxay sidan oo ekaatay hadal mayaan hadal karayaaba dhakhtar baan u baanay hooyo xaalkaygu ma sahlan bajaaj bay ugu yeedhay gaadhigii saartay si ula ordisay dhakhtarkii geysay gabadheer waxaa la yidhi xaaladeedu intaasoo dhan maxaad la qabanayseen gabadhu aad bay u xanuunsanaysaa ku dhowaad 15 beri ayaan dhakhtar ku jiray alxamdulilah waa iska bogsaday dhakhtarkiina waa ka soo baxay gurigii baa ku soo noqday odaygii aabbahay ahaaba ay yimid oo igu yidhi aabba maxaa ku dhacay maxaa sidan kuu galay aaway ninkaagii aabbahay adduunkaan ugu nacay lamaba hadli karayaba saas maan u fiirinaya aabbahay isaga waayo cuqdadaan u qabo waa cuqdadaan dhammaad lahayn hooyadii baan wax walba uga sheekeeyey haddaba arrinta la yaab kale ayaa waxay tahay saaxiibayaal ninkaasi reerkan wax lacaga maanu siin odayga bilowgii hore malaha $200 iyo wax noocaas ku yarsa subanayay buu siiyay oo jaad ahaan adigu wax ugu qaado yar siiyay laakiin lacag fiican uu siiyayna ma jirto meherka yar uu yiri oo ku mehersaday oo lacag $200 miya uu sheegay mooyaane wax kale ma jirin $300 adu wax noocaas uu sheegay marka lacagtii 3,000 iyo wixiina maanu siin odaygana waxba maanu siin reerkan waxba maanu siin ninka asaga ha dalka Mareykanku ka degayba dhag California ka degayba ma joogaba odaygo yaaban hadda ninkii iska tagay ha waxba kuma siin muxuu siinaya uu iska tagay odaygii gurigii u yimid sariirihii iyo waxyaabihii soo gadgaday ayuu dib u xaraashay intaasoo lacag yar ka helay sariirtii iyo fadhigii iyo waxyaabihii uu soo gadgatay ayuu dib u iibiyey lacagtaas yar ayuu deedna xoogay ku yara faa'iido reerkiina ku biiloosna ku qayday hooyaday waan dareemayaa inaanay ku qanacsanayn xaalkan aan ku jiray laakiin haddana waxba kamaanay qaban karayn walaalkayna runtii markuu arkay xaalkayga aad baa uga xumaaday laakiin there is nothing he can do inuu iska murugooda mooyaane anyways iskuulkaygii baa liigu celiyey waxbarashadii iyo wixii aan iska wadin jiray baan iska watay muddo haddaba ku dhawaad hal sano kadib ayaa waxa dhacday inuu odaygii soo hadlo yuu la soo hadlayaa aabbahay buu la soo hadlayaa odaygu aabbahay xoogay way isku qayqayliyeen aabbahay wuu la diraray wax bilaa dhaqana tahay buu ku yiri waa maxay waxa gabadheeda ku sameysay maxaad saas foosha xun uga tagtay deetana ninkii wuu xanaaqo war gabadhaada waaban furay buu ku yiri iga furan tahay niyo qayladayga jooji ayadoo qoraalana hadan ku soo qorayaabe iga qabso way iga furan tahay haddii saatay gabadha xaqeedii u soo dir meherkeedii u soo dir lama sheekaysan muddo kadib gabadhii ayada ahayd waxay u baahatay in officially si rasmi ah ninkaasi warqadii yani ay maxkamadda uga soo qaato furiina aabaheed ayaa waxay ku tiri waxaan doonayaa inaad maxkamaddii raacdid arrintaana la soo dhamaysid warqadeedana aan soo qaato laakiin show isla waqtigaaba odaygii iyo aabbahay way heshiiyeen oo odaygiiba sheeko khuraafaad uga sheekeeyo waxa ku yiri niyoon waqtigaasi ayada ah arrin emergency ay soo kordhay dhibaata xagan ka dhacday nin walaalkay dhintay maxay ba saas wax u dhaceen waxaan doonayaa in kula soo hadloon xaalka socodsiiyo markaan halka tago laakiin numberkaagii wixii dhan way iga baxeen numberkaaga hadda dalqi baan ku helay oo odaygii saaxiibkaaga numberkaaga soo siiyay aduu sheeko dheer ayuu la galay way heshiiyeen marka aduu waqtiga dhibaatada soo gaadhay hal sano kadib weeye waqtigan ay heshiinayaan lacag xoogay $200 odayga waa u soo diray waxa uu yiri gabadhaasi aanu maan furin wali waa xaaskayga inaan furana ma doonayo inaan u soo laabto ayaan doonayaa aan wax walba hagaajino saas ayaa waxa ku heshiiyay aabbahay iyo ninkii calaan caldeer kadib aan waxan ma ogeyn leene maxkamadda ay raac baan ku yiri odayga aabbahay si arrintaasi ay la soo dhamaato aabbahay uga diiday wuxuu ugu yiri ninku wuu ku qabaa adaa ninka dhibaateynaya oo aflagaadeynaya oo soo dhaweyn waayay oo ka xanaajinayay ninku ku jecel yahay Mareykanku ku keenaya u imanaya maxay u imanaya ha markuu saa igu yiri waxaad leedahay wadnaha meel ba qaaci tiri ma ninka ba igu soo noqonaya ha uu soo noqonaya wuu ku imanaya anu aabbahay wax ma oran karayo hooyaday baan isla go'goonay hadaba qofka kaliya la doodi karayo waa hooyaday asaga haddaan la doodo dharbaaxa ka soo horeysa lama doodi karayo hooyaday ayaan isla go'goon hooyo sidana si maaha maalintii qaabkaan u ekaa wadiga arkay haddana cadaabtaas doonaya inuu aabba igu celiyo fadlan aabba ka dhaadhici in warqadaas
aan ka soo qaato maxkamadda. Hadda arrintaas ma soconaysa ku tiri adigu say gabadha u qanciyaan odaygii iyo hooyadeed iyo gabadhii baa israacay maxkamadda ayay tegeen. gabadhan nasiib darrada haysata ayaa idiin sheegaya nimco yar nasiib darrada haysataa waa mid aad u la yaab badan. maxkamaddii haddaba ha yimaadaan. maxkamaddii markay yimaadeen gabadhii odaygii maxkamadda fadhiyey ayaa ku yidhi bal hadalo dhibtaada sheego. waxay ku tiri dee ninkaasi waa nin xumeeyey oo saas ii galay oo anoo yar la ii guuriyey oo wuu iga tegey oo wuuna i furay warqadii baan doonaya. odaygii aabaheed ahaa ayaa haddaba hadlay. wuxuu ku yidhi gabadhayda iyo ninkaasi way isqabeen xoogay way isku dhaceen asna dalkiisii Maraykanka ku laabtay gabadha weli wuu qabaa laakiin de maxaan sameynaa gabadhaydii baa diidan oo leh iga fura. odaygii buu soo jeestay dee adeer maxaa rabtaa ninku hadduu ku jecel yahay reerkaaga ma dhaqatid maxaad isaga furaysaa. allah adeer sheekadu saas maaha ninkani wuu cadaabay ninkan intuu guriga xidhay biga tagay ninkani dhibaato sameeyay wuu furay xataa fariinba xataa aabay u soo diray uu ku yiri gabadhada waan furay anigana anoo joogo igu yiri saddexdii baad iga tahay wuu furay ninkan waan ka furanay xaaskiisa maba ihiba batatan. hooyadii ayadu ma hadlayso waan u jeedaa kursigaas fadhidaa way aamusan tahay wasu ka daawanaysa aniga iyo aabahay iyo odayga meesha fadhiya. hooyadii buu soo jeedsoo ku yiri hay xaajiyo maxaa kula tahay gabadhaada ma xanoo sheegay adiguna waxay ugu jawaabtay wax walba sida aabaheed yiri aabaheed ay gabadha amarkiisa diidan tahay tidna waxaan dareemay in la heshiiyay inaan dan laga lahayn. odaygii ayaa deetna waxa uu igu yiri go'aan degdeg gaari kari mayno ee waxaan doonayaa inaad maalinta Isniinta si gaar ah adigu ugu soo laabatid adaan si gaar ah ku wareysanayaa kadib baan go'aan caadi gaadhinaa maanta iska taga ayuu nagu yiri. iyo adu warqad waan soo saaranay saxiix iyo maxay waxba ka dhiniman odaygan buuxbuuxin lahaa wixii oo dhan odayga ma ku xirantahay odaygana waa ka saaray. okay baan yiri waan iska tagnay meeshii maalintii aan ku ballanay ayaan daba odayga ku soo laabanay. deetna wuxuu ku yiri dadkan ka horma bixinayaa in yaralka ay fadhiiso. okay baan ku yiri ilaa 12kii duhurka ka hor ayaan yara sugay 12kii badhkii meelaha markay ahayd ayuu ku yiri hay soo kac. waan soo fadhiistay deetna waxaan bilaabay inaan arrintii guda galo oo arrinta uga sheeg markaas uu jooji adeer sug adi si gaar ah inaan ku wareystan doonayaa in soo kaxay gaadhiga fuulna kaalay. waan yaabay gaadhiga fuulna muxuu ka wada talo. okay baan ku yiri gaadhigiisii ayaan shirka fuulay meel yar oo baarkina xagga maxkamadda ayuu taagnaa. deetna wuxuu igu yiri adeer si fiican dhegeyso gabadha yar baa tahay oo aad u qurux badan oo maasha Allah ya ana hawshan kaala shaqeynaya warqadana ku dhameynaya reerkan ana ka xalinaya ninka xunna ka furaya laakiin maxay tahay annagu hana saaf garan isfahanno inna fajahna bismillah waa odaygii dhanaa ee maxkamadda fadhiyay ee uu gadhku inta leeka ayaa sayla hadlaya sayna isku fahnaa macnaha ma in labadeenu isfahanno waxaan doonayaa in labadeenu isfahanno saaf garan naag weyn baa tahay farta waa weyn ku sheegi maaye hana saaf garan isfahanno saaxiibayaal beenka ma sheegi gabadhaas odayga sawirkiisa ay soo dirtay waa oday mutawac oo gadhku inta leeyahay oo wajigiisa markaad aragtid aad moorisid sheekhul beledki nin kastoo gadhweyn qaba sheekhu male wallahi billahi walaalayaal saaxiibayaal ha ku degmina gadhweyn iyo khamiis ninkan cilmi uu bartay ninkan waa saas maxay buu ka soo baxay jaamacatul hebel buu ka soo baxay oo shahaado ka sita waa doctor waa maxay halka markay sheekadu marayso odaygan warkiisana aan si fiican u fahmay waxaan ku dhaadir si fiican dhageyso hase kay qabay iska daa waxba iga furule iska daa deetna ka soo degay deetna wuxuu iga daba tuuray weligaaba ku qabaya laga ma furayo ilaa inta labadiina iska afkaranayno anoo yaaban naxsan xanaaqsan ayaan guriga ku soo laabtay. arrintii waxaan u sheegay odaygii aabahay ahaa naabahal edeb daran oo dhaqan xun baa tahay dadka islaameed hamase badan oo beenta ka sheegin bahal dhimatay baa tahay ninkaagii horaad been iyo balaayo ka sheegtay haddana ninkii dhanaa sheekhii dhanaa maxkamadda fadhiyay ayaa been ka sheegaysa miya naawad edeb taratay mar dambe hataa waxa ka maqlo qoortan ka jarayaaba ku yiri hal saqa jaamada tahay markuu ku yiri kaama furayo ayaad odaygii dhanaa sheekha ku soo kala jeedisay miya waan yaabanahay. hooyadii baan la wadaagay hooyadeena sidii islamada waxay ku tiri waxaas wax maqula ma sheekhii dhanaa ee meesha fadhiyay ay wax noocaas ku leeyimid nadaad wad fogaatay hooyadii baba ka sii daran way la diraraysa yaa ay aaminaya qofka kaliyaata ee warkayga rumaystay ee si niyada ila hadlay ila murugooday waa walaalkayga weynaa wuxuu igu yiri batiri odayga ay tus waaban dilayaaba saqajaankaas aad burunta uga xanaaqay walaalkay waa ninka kaliyaata i dareensiiyay inuu ii dagaalami karo waa nin walaalkaya oo meelaha hal sano iyo badh xoogay iga weyn inta kale agtooda nothing ayaan ka noqday qof aan waxba ahayn ta kaaga sii daran ninkii baa ii ballansan oo ii soo socda ninkii i cadaabay i ciqaabay ayaa ii soo socda. inta wixii ka dambeysay shakhsiga kaliya ay ku nafisi karo waxa uu ahaa walaalkay markastoo murugoodo niyadayda dejin jiray ee la hadli jiray haddaba habeenada kamid ah sidiisa lamid ah odayga aabahay baa yimid waxa uu yiri waxaan doonayaa inaad istiyaarisid ninkaaga baa ku soo socda reerkaaga baa dib u dhisanaysaa noloshaada dib u bilaabanaysaa sidii hore hadda maaha xaalku cabsidii ayaa bilaamatay waxay tiri habeenkaas maan seexan iskuul iyo waxaas dhan faraha ka qaaday halkaasaan fadhiya qof waxaan noqday qol un dhex fadhiya oo hadhiya habeen oohinaya murugaysan cadaab ku jira fikiraya saaxiibba melihi
hadalkaygii badnaa iyo furfurnaantii ma jirto gebigaygiiba waxaan noqday qoftaas murugaysan ee dhuuban gebigaygiiba waan baaba'ay bay leedahay 45 mise 47 ayuu miisaankaygu yahay berigii horena tuyaroo kuusan oo maasha allah oo kaale aragan ahaa iminkana gebigaygiiba waxaan noqday qof si uun u murugaysan si uun u oohinaya anoo haddaba maalintaas aad u oohinaya aad u murugaysan ayaa waxaa i yimid walaalkay oo mar waliba ahaa shakhsiga dareen wayla fadhiistay wayla sheekaystay wuxuu igu yidhi waan u jeedaa walaashayay ciddan kaale ma jirto aniguna wakaa wiilkaas dee xaalkiisu saas ka yahay baan ahay kula mid baan ahay meel ma haysto hanti ma haysto dhaqaale ma haysto guri ma haysto anigiibaa waxbarasho iyo buug la cararaya waxaan kuu qaban karaya ma jiro laakiin anigu talaan ku siinaya walaashay ninkaas ha sugin hooyo iyo aabbo dankaa ma laha aniguna maadaaman waxba kuu qaban karin hal talaan ku siinaya taladaan ku siinaya waxay tahay dharkaaga xidho kabaaga xidho guriga isaga tag gurigan siduu u dhan yahayba dhaaf ka carar gal magaalkaaga dibna ha soo fiirinin maskaxdaada adeegso laakiin meelaha khatarta ah iska ilaali dumarka iyo dadkaas u tag danahaaga u sheego cid unbaa ku soo dhaway muslimku adduunyadu ballaaran tahay ka caakuf dhib mar huno isaga tag meeshan ka carar intaasaanu tala kuu siin karayaaba ku yidhi taladii walaalkay qaadashadiisa wax toos ayaanu qaatay kama labanlabayn bid maalinnimadii xigtay kabaygaan xidhay oo guriga gebi ahaan baa naga soo baxay lacag yaroo xoogay adeeg oo meesha taallay na waan soo qaatay hooyaday oo meesha dhigatayna waan ka soo qaatay gaari baan ku soo booday caasimadda ayaa nimid magaalada deegaankeen joogay caasimadiisa ayaa nimid ciddaanadu ma taqaanaa gabadh saaxiibtay ahayd oo isku kalaas ahaan jiray oo ayadoo xaggan u soo guureen ayaan la soo hadlay waan idiin soo kala boodeen waxay leedahay welibana telefoon inaan ku hadlo layma ogolaan jirin aabbahay iyo hooyaday labaduba iima ogoleen hadday arkaan anoo teleefon ku hadlaya waa liyaflagaadaynaya bahal dhaqan xun baa tahay noloshaad ka dhacday niman iyo balaayaadsaa oo la sheekaysataa yacni noloshiiba inacsiiyeen beelada dadkani intaa waxay ka baqayaan inaan nin kala shookaansado oo uu ninkaas iheli waayo ninkaas ila sugayaan anyways gabadhaasi saaxiibtay ayaan la soo hadlay xaalkayga u sheegay deetna waxay igu tidhi kaalay halkan isa kaalay annaga nala joog kaalayo sidii ayaa sameeyey lacag yaroo miiska saarnayd meelaha hooyadii lacagaha dhigataan garanaya ayaan ka soo saartay deetna saan u socday gaadhiga ayaan kusoo booday gabadhii saaxiibtay oo meeshii gaadhiga igu sii sugaysa oo sii taagan ayaabaan ugu tegey gabadhii baan israacnay gurigoodii ayay deetana geysay gabadha isku daad baan nahay oo gabadh maasha allah nolol fiican isaga nool waxbarashadeedii magaaladuna soo wareegsatay oo waqtigaas iskuulka waday oo foon 1 ahayd baa iskuulka sii wadatay waxay ku tiri saaxiib ani iskuulla waan ka hadhay noloshaydii way burburtay xaalkaasaan ku jiraa saaxiib xaalka adduun baan ku jiraa gabadhii markaa hooyadeed ayay arrinta gabadha nooga sheekaysay iyo dhibaatadii ku nooshahay iyo ninkaasi u soo socda iyo rafaadkay martay deetna hooyadeed u naxariisatay waxay ku tiri deetna gabadhii maama annaga nala joog annaga waalid kuu noqonina annaga nala joog okay bay tidhi xoogay reerkii ayaan iskala joogay deetna maamadii gabadh shaqaalo u joogtay ayaa iskaga tagtay shaqaale guriga u joogi jirtay ayay iska erayeen si tartiiba booskii gabadha shaqaalaha ahayd anaaba liigeliyey anaaba liigeliyey hawshii guriga qabanaya weelka dhaqaya cunto karintana welibana waa naqaanaa maadaama dee gabadha ugu weyn xaafadeedaan ahaa bariiska iyo baastada iyo waxaasoo dhan sida loo sameeyo waa naqaanaa cuntadii waan samaynaya nadaafadii wixii oo dhan guriga hagaaji nasiima ma jirto shaqaale caadiya ayaaba noqday muddo 2 bilood ah markaan rafaadkaasi ku jiray een dhabar jaboon daalay ayaan fikir kaaga sii tarnaya waxay tahay maamadani lacag imaba siinaysaba xataa hadiiba ay shaqaale ahaan ay xisaabinayso lacagta ay siinayso si un bay ahaan lahayd lacagna ima siinayso ayadoo igu shaqaysanaysa ayaa haddana waxay ka dhigaysaa inay ixsaan ii samaysay oo gurigeeda la joogo ixsaanka ay samaynayso ma cuntada yar ay siinaysaa wadadka qaar naxariis xuma dar uma gadayso waa cuntada yar ee la wada cunayo oo mooyaane wax allaaliya wax kale oo dheeriya oo siinayso ma jirto waxaa jirtay ba tira haddaba maamo kale oo qurba jooga oo dalka ingiriiska meelaha ka timid oo reerkan wax isku ahaayeen oo soo booqbooqan jirtay oo maamadaas inta u timaado badana ay wada sheekaysan jireen markay timaado waxay oranaysaa nimcooy shaah amba sharaab keen noo keen kaalay qofka aamusan baan ahay shaah iyo wixii uu keenayay baan u keenayaa maamadu saas ay fiirsay waxay aragtay inaan ahay qof murug far badan dhexdeeda ka muuqato deetana waxay weydiisay maamada qurba joogta weeye ayaa waxay weydiisay maamadii guriga lahayd gabadhan ma gabadhii shaqaalada mise waa faamilka ma gabadhan waa gabadh miskiin oo anaga nala joogto waxay iga soo qaadaysaa maamadan way timaadaa way salaantaa hooy see tahay ma fiican tahay bay tiraahdaa si fiican bay la hadashaa maalin maalmaha kamid ah ayaa haddaba waxay aragtay anoo jikada dhex fadhiya oo iska fikiraya oo keligay dhulka iska gargaraacayo saas iska murugaysan albaabkii dibadda isaga soo gashay deetna maamadii saas ay soo fiirisay way igu soo leexatay deetna way ag fadhiisatay waxay ku tiri maama maxaa ku dhacay maxaa sidan ugu murugaysan tahay xaalkaaga ii sheeg waxbaan ku yidhi maama waxba balaa ma jirto alxamdulilah dhibaato ma jirto meeyey bay igu tiri maama indhahani anigu gabadhaday ku leegoon dhalay baa jirta waan dareemi karaa hooyanahay wax waan dareemi karaa waxay fara badan baa qalbiga ka guuxaya wax ii sheeg hooye maxaa ku dhacay
markay saa igu tiri murug ayaan dareemay ilin ayaa indhahayga soo istaagtay waayo qof sidaa dareenka ay la hadla mabaan aragba hooyaan ahay caruur baan dhalay gabadhadii kuleeg baan dhalay waan dareemi karaa inay dhib jirto ayaan dareemayahay hooyo waxay sheeg maxaa kugu dhacay islaantii oo fiirinaysa ayaa indhahayga ilin baa saa igu soo istaagtay maamadii ayaa ii soo dhawaatay habay siisay igu tiri istaji maama wax ii sheeg deetana maamadii wax allaaliya wixii jiray iyo dhibaatadii aan qoyskii uga soo cararay iyo haatanna dhibaatadani aan soo galay ayaan uga sheekeeyey oon hadhiyo habeen nasanayn dhabarkii xanuunay rafaaday reerkanna waxba aanay siinayn xataa waxba iibinayn niyadan ay dhisayn gabadha yaree saaxiibtay markay timaado iyada la tirkeedu iska mashquulsan oo marmar aan sarkayno siira salaamin oo xogay aan isaga dhigay qof faraxsan oo la hadlay mooyaane cidan iga leh ma jirto deetana waxay igu tiri maama ina mare ka soo tir reerkan ani ii kaala bay ku tiri maamadan aan soo salaamaya xogay waan soo noqonayaa halkan igu sii sug markaan soo baxo iga soo daba baxadiguna haba sii joogin meeshan okay baan idhi sida ayaa dhacday maamadii bay la soo hadashay oo soo noqotay guriga ka soo baxday deetana gacantii hadisay waxay ku tiri soo kac waan kaa dabeeman iska socon ku yiri gurigeedu nagama fog gurigeeda waan garanayaa anaa imanaya hooy iska socon ku yiri hata waayo waxaan diidanahay bay tiri inaan ayr iska soo dhaqaaqo aan wax u sheegay reerkan ixtiraam baan u hayaa reer dhan oo gurigooda joogay inaan isaga dhaqaaqaan diidanaa reerkii adigu qadad baan u sameeyay gurigii waxba yara hagaajiyay casarkii markay ahayd maamada aad baan uga xishoon jiray bay tiri wayna dirir badneed maamadan aad buu qaylo badan tahay waxaan ku yidhi maama xaggii reerkii baa lagala soo hadlay inaan iska noqdan doonayaa markaa waan soconayaa maama khayr fara badan baan ku rajeynaya alla maama ma iska joogtid reerkaas maxaad ugu noqonaysaa reerkaasi waa ku dhibaataynayaan ninkii bay kugu celinayaan maxay igu celiyaan caadi weeye maama waa iska tegay anigu hooyadii warkeeda diidi kari maayo sidii ayaan sameeyey waan ka soo tegey maamadii kale ayaan deetana u imid maamadii waxay samaysay allah si ii soo dhaweysay bay leedahay dhar bayba iisii diyaarisay ay igu tiri hoo xidho dharka nadaale qaado aniga shaqana kuu dirsan maayo gabadh yar baa tahay aniga gabdho shaqaalaabaa ii joogo shaqaysto lacagtooda qaata waxaan doonayaa inaad joogtid wax baratid gabadha aan dhalay aad iila mid ahaatid ayaan kaa rabaa ayay ku tiri okay bay tiri si marka loo fiiriyo hooyadii waan u xiisay aad baan u tabay haddana mar walban hooyada u xiiso waxaan soo xasuusanayaa sidii naxariis darrada ahayd ee ila hadlaysay ereyadii aflagaadada ahayd ee igu odhanaysay mararka qaar inaanay aabbahay iga celinayn iyo dhibaatadii uu aabbahay ii geysanayay oo iyaduna ila garab taagnayd waxaan naftayda mar walba ku idhahdaa dadkaasi way ku dhaleen keliyata laakiin dad rajo kaale maanay ahayn dadkaasi dad wanaagsan maaha muhiimadooda ninka Mareykanka ka imanaya ayaa ugu muhiimsan ayaa lacag isla markiiba maamadan iskuuleeyay geysay sideedaadkii ayaan idhi waan fadhiisanayaa adoo xoogay warqadii bedelkii iyo waxba dhibaato laga yar marmaray anyways waxaan ku idhi maama iskuul waxma si dhiganayabe xirfado ayaan baranayaa xirfado aan jecelahay sida makeup-ka iyo qurxinta dumarka iyo dharka sida loo dhisaan gareeyo oo dharka dumarka loo qurxiyo waxyaabo noocaas ah ayaan doonayaa inaan barto xirfado noocaas ah iskuulka intaas aan iga joojinayaa ma ku tiri sidii ayaan sameeyay xirfado iyo waxbaan iska barbaranayay maasha Allah maamadani gabadheedoo kale ayay ga dhigatay leeyma faquuqayn meer gaara leeyma seexinayn gabdhaha ayaan la seexanayay gabadha maanta haddii gabadheeda wax soo iibiso anigana waxay gabadhaas u soo iibisay la mid bay ii soo iibinaysay yacni waxaan dareemay inaan helay waalid daryeel qofka biniaadamkayna mar waliba waa qofkii u naxariista ee naxariistuse ee daryeela qofku ha badnaato amba ha yaraato haddii uu noloshaada uu saameyn ku yeesho uu abaal kuu galo weligaa ma ilaawaysid haddii uu xumaan kuu geysto sidoo kale xumaantaas ma ilaawi kartid maamadan waxay ka heshay naxariis aanay ka arag waalidiinteedii dhalay ee caadiga ahaa maasha Allah waxay tiri reerkii xoogay sanadii waxbaan la joogay mise sanadii badh alxamdulillaah xirfado fiican baan bartay shaqooyin ayaabaan helay oo ka shaqaynayay reerkiina ugu dambeyn waxa weeyaan markii dambe waxay go'aan ku gaadheen inay xaggii dalka Ingiriiska ku laabtaan marka way la soo hadli jireen alxamdulillaah waa iska warhaynaynay aniguna waxaan noqday qof isku filan oo shaqaysta oo alxamdulillaah meel degan walibana maamadaasi bil waliba si joogta ayaa lacag ay ugu soo diri jirtay oran jirtay hooyo meesha degantahay kirada saga bixi wax ku iibso isticmaal gabadheeda tahay haniyad jabin mar walibana waa wada hadli jiray waxaan igu oranayeen mar waliba waxaan kala shaqayn doonaa sidii dalka Ingiriiska oo iman lahayd oo horumar u gaadh lahayd sheekada waxba ayaan ku sii dheerayn waxay tiri muddo kadib alxamdulillaah wiil aad u wanaagsan ayaan isbaranay anigoo nin marka la yiraahdo ka carari jiray buu ninkani jacayl soo bandhigtay anu nin isku man aaminayn batir anigu guurkan waxa la yiraahdo laftirkiisaba cabsi ayaan ka aaminsanaa sababtoo ah waa markii u horeysay anoo yar oo 15 jira ayaa waxa la xareeyay nin bilaa naxariis ah oo aad nolosheeda u burburiyay marka guur marka la yiraahdaba waxa ay sawarnayd rafaadkii uu ninkaasi mariyay waxaana ka aaminsanaa guurka oo dhaniba inuu cadaabta yahay in sidaas la soo ciqaabayo nin markaan wada hadlo hadii uu guur yiraahdo guura waan ka carariyay
laakiin ninkan naxariis fara badan buu siiyey kalgacayl fara badan ayuu tusay heer waxa uu gaarsiiyey boqolkiiba boqol aan ku kalsoonaado nin magaalada degan buu ahaa alxamdulilah nin iska waqtigaas iska shaqaystan wuu ahaa ma xumayn nin laakiin taajir ma ahayn laakiin iska caadi oo shaqaysto ordaya oo maasha Allah dadaaliya ayuu ahaa waqtigaas ayada reerkayagii waan xiriirin jiray waan heshiinay waan soo wada hadli jiray aabahay waan la hadli jiray aabahayna wuxuu igu yiri aabo si fiican baad samaysay waan ka qaldanayn aad baanu kaaga qaldanayn waliba talaabo fiican baa qaaday waan kugu goobaabinaya hooyadina sidoo kale way la soo hadli jirtay way iska heshiiyeen marka uma tagi jirin laakiin telefoonku ma ku wada hadli jireen marka qaar laakiin kuma jirin rajo ah inay ku laabato gurigoodii go'aan adag bay ka gaadheen inay ku laabato gurigoodii ku noolaato sababtoo ah waqtiga u baahnayd ee aan meel haysan hooyadeedna way rafaadinaysay oo dhabarka ay ka jabisay taa waxa kaaga daran ku shaqaysanayso niyadda ay ka jabinaysay aabaheed baa ka daran yacni waxay ahayd qof yar oo qalbiga ka dhimatay oo qalbiga laga dilay uqtama ninkani si sharaf leh ayuu soo doontay wuu guursaday gabadhii alxamdulillah maantadan aan ila hadlayo waa maamo 2 caruur leh degan nolol qabow oo maasha Allah oo caadiya ku nool waxaana ku nooshahay magaaladaas magaceeda sheega meeyidin ma sheegay magaaladaas ay qoyskana fiican isku barteen ay deganeed ayay ninkaasi isku barteen halkaas ayuu ku guursaday si sharaf leh ayuu soo doontay maasha Allah haatan gabadhaas waxa uu jooga 2 wiil maasha Allah waxaan igu tiri waxaan doonayaa walaalo sheekadan inaad dadka la wadaagtid gabdho fara badan oo dhibtaan soo maray oo kale ku jira waqti xaadirkan ayaa laga yaabaa inay cashar u noqoto waxa laga yaabaa inay jiraan waalidiin fara badan oo caruurahooda iyo gabdhahooda yar yar dhibaateynaya laakiin dareemayn oo waxa laga yaabaa muuqaalkan markay daawadaan inay habdhaqankooda iyo qaabka ay caruurahooda u feeranayaan gabdhahooda yar yar inay wax ka bedesho waxaan rajeynayaa sheekadan inay gabdhaha yar yar waalidiinta aabayaasha hooyooyinka walaalada dadka guryaha ku haysta dadka ducafada masaakiinta ah ee tabarta lahayn had noqoto shaqaale ama base qof miskiin oo la jooga intaasi oo dhanba waxaan rajeynayaa sheekadani inay cashar u noqoto waalidow ilmahaaga naxariis la ku feeri ereyga aad ku leedahay dhaawac ayuu qalbigiisa u geysanayaa ereyga aad u isticmaalisid oo fiirso meesha aad geynaysid oo fiirso odaygaas muhiimadiisu waxay ahayd lacagna ninkaas kama aanu helin fiican gabadhiisiina noloshii ayuu ka burburiyay gabadhii intaasi oo sano soo korinayay nimankan kibirsan ee qurbaha jooga dadka qurbaha jooga isku wada mid maaha dad wanaagsan baa jooga oo ka mid yihiin qoyskii markii dambe gabadhan wanaajiyay laakiin waxa jira niman ayagoo xaasas ku qabaan qurbaha Afrika u yimaada si ay gabdhaha yar yar noloshooda u burburiyaan ayagoo intimacy raaxa iyo balaayo ka raadsanaya gabdhaha yar yar meelaha ugu badan ee gabdhaha lagu dhibaateeyo waa wadankani aan joogo ee Kenya gabdho fara badan oo waxa jira waalidiintoodii aan joogin ama waalidiintoodii joogaan haddana dadkaasi qurbaha ka yimid Mareykanka meelahaas si yar oo fudud loogu gacan geliyo haddii gabadh yar oo miskiinta kula joogto shaqaale ha noqoto amba gabadha wax u tahay ha noqoto fadlan gabadhaas gabdhaha kale ka soo qaad ishaad ku fiirinaysid yaana noqon il shaqaale il qof liita ee ku fiiri ishaad gabadhaada ku fiirin lahayd oo kale naxariistu waa muhiim adigana daawanaya laftirkaaga waxa laga yaabaa dhibaatooyin fara badan soo martay dhibaatooyinkii aad soo martay cashar ha ku noqdaan dadka ha dhibaataynin gabadha walaasheena waxaan leeyahay walaal waa mahadsan tahay guul fara badan ma ku rajeynayaa ubadkaad dhashay iyo kuwa dhali doontidba waxaan rajeynayaa inay farxad ku noolaadaan aad farxad ku korisid wixii hore cashar ku noqdaan alxamdulillah ninkaagaasina ilaahay ha ku wanaajiyo sidoo kugu wanaagsan yahay si ka wanaagsan Allah kaaga sii dhigo annagana ilaahay qulubteena naxariis ku beero saaxiibayaal war ramadaan waan duceeyay ee aamin dhaha khayr fara badan isku ognahay muuqaalkan like saara channelka dadweynaha hadii aad ku cusub tahayna ku soo biro subscribe saar si aad ula socotid sheekooyinka faraha badan ee xiisaha leh ee inoo soo socda ilaa kula dad xiiso leh assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh goodbye